الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ودروستي رمضان قايبتي ولبا فقه هي أحكامتا أما نظامك وصامك وباهي هاي وكو أنصحيه شرعي قولي waxaynu xusaynaa 4 kelmadood halkan. arinta horeysa waxa weeye tiirarka uu ku taagan yahay soomku ee lagama maarmaanka u ah haddii mid ka mida laga tago uu burayo. arinka labaadna waxa weeye shuruudaha uu u baahan yahay soomka waajibka shuruudihiisa, iyo arinta saddexaad oo sunnayaashiisa, iyo arinka afraad oo ah asraartiisa ama faa'iidooyinka ku jira iyo xigmadaha. soomka tiirarkiisa uu ku taagan yahay waa 2 arrimood. ta horeysa waxa weeyaan aniya, waayo cibaado waliba waxay u baahan tahay niyo. inaad maanta isaga afxidhan tahay abateed xumo iyo gaajo ku hays adigoo aan cunnada jeclayn, iyo inaad sooman tahay waxa kala saari kara waa niyada. نبينا وحده صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال منوضة بالنيات. عمل الله عن صحته وحي كحريه النية. إن قبيسنا يسوع أو قبوسنا يسوع يعني جنابات كم بين السنية كلا صاريس هل كان واصل عصون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تذكر الله فري inay ilaahay caabudaan iyagoo cibaadada u saafi yeelaya qasadkeeda iyo niyadeeda. niyada iyadaahi waa rukniga koobaad. waxaa markaas lagama maarmaan haddana lala akhriyayaa taas inay habeenkii dhacdo oo waagu aanu kaaga baryin, oo cibaado waliba waqti bay leedahay la niyoodo waana intaanad bilaabin. soomka, salaada, sakada, xajka iyo cibaado waliba intaanad gudagelin ayaa weeye niyadeedu yaad u dhaqaaqayso. ka daba tuur ma yeelata niyadu, oo imika duhurkii ma odhanaysid soomkii iska niyood. ka sunnaha ma aha, laakiin kaynu ka hadlaynaa waa kii faralka ah. xadiid asxaabu sunan iyo culimo kaleba ay warinayeen oo sugan ayaa nebigu wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam man lam yujmic الصiyaama biاleyli falaa siyaama lah, calaa macna اlxadiid. qofku haddii aanu siyaamka soo niyoonin qabla alfajr, waaga ka hor, maalintaasoo ma leh. waa inuu niyaduna waxa weeyaan inuu go-aansada aroortii inuu soomayo markuu cashaynayo, suxuuranayo. ereyada laakiin la akhriyo ee madhabta shaaficiyadu ay idhaahdaan waa sunne, iyadu daliil ma leh. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان انت ديري wax daliila ma laha iyadu ee qofku uu go'aansanaya. arinta labaad loo baahan yahay waxa weeyaan in uu qofki iska daayo waxyaabaha soomkii ka jabinaya. soomka waxyaabaha jabiya, waxyaabaha muftiraadka ah ee jabinaya waa inuu iska daayo. waxyaabaha jabinayana ilaa 8 shay baynu soo sheegnay 10 ka horeeyay. xunistii iyo cabidii iyo galmadii iyo gaalnimadii iyo waxyaabahaasi ay ka mid ahaayeen. waayo cibaadadan si kayaankeedu u jiro marka aad hirgeliso wixii burinayna waa inaad ka dayso. labadaa shardi, labadaa tiir baa lagama maarmaana in cibaadadan ay hesho. halka arkaanta salaadeedu dhowr iyo 10 ay yihiin, xajkana 5 meelaha ay noqonayaan, iyada labadaas ku soo urursan yihiin arkaanta soomka. waxa markaa aynu u gudbi lahayn qodobka labaad oo ah cibaadadan iyada ah sunnaha shuruudaheeda. shuruudu hadi alcibaada, shuruudeedu waa 2 qaybood. qayb waxaa la yidhahdaa shuruud الصحة, qaybna shuruud الwujuub. shuruudaha qaarkood waxaa qofkii laga doonayaa in la helo si uu soomku ugu waajibo.
kaa uu ku waajibay laftiisa haddana shuruudo kale loo sii xidhayaa oo uu kaga ansaxayo qofka soomkuu ku waajibaya waa qof muslima oo miyir qaba oo qaangaadha oo aan musaafir ahayn reerkiisii ku negi caafimaad qaba sidoo kale daahir ah oo waxaynu uga jeednaa daahirka ruuxii dumarka ahayd dee waa inaan dhiiggii caadada iyo kii dhalmada aanay lahayn waa qof muslim ahoo qaangaadh ah oo miyir qaba oo caafimaad qaba oo reerkiisii joogoon musaafir ahayn daahirna ah waa 6 shardi 6daa marka la helo waa lagu yeesho soomka hadduu ka tagana waa aafim ama dembiile oo dee qof arkaan islaamkii mid ka mida ka tega weeye shuruudaha uu ku ansaxayo waxaa jira qof aanu ku waajibin laakiin uu ka ansaxayo iyo qof laga maarmaan u tahay markuu ka ansaxayo inuu la yimaado shuruudaha laga yaqaano shuruudu sixa waa qofku inuu muslim yahay hadduu gaal yahay kama ansaxayo xataa hadduu soomo qofku waanu caaqil yahay mid miyir qaba hadduu waalan yahay xataa hadduu soomo kama ansaxayo qofku waanu daahir yahay haddaanu daahir ahaynoo ruuxa dumarkii caado iyo dhiiggii ay leedahay xataa hadday soonto kama ansaxayo marka shuruudihii baa sii kala hadhan shardiga afraada lagu dari karaa waxa weeye inuu mukhtaar yahay qof isagu doortay oo haddii la qasbo xoog intoo lagu qasbo la idhaa soon dee waxba kama ansaxayaan marka afartaa shardi waxa weeyaan dhinacna waxay ka raacsan yihiin shuruudihii waajibnimada dhinacna shuruudihii ansixidda ayay noqonayaan halkaa 2 qodob baynu ku dhaafnay qodobka saddexaad ee axkaamta ka midi waxa weeyaan si cibaadadeennan midhaheedu ay u bataan ama tayadeedu ay wanaagsanaato ajrigeedu u bato waxa laga maarmaana sunnayaashu waa ilaa 10 arrimood soo socda waxaa ka mid ah inuu qofku suxuurto oo haddii aanu suxuuranin soomkiisu waxba noqon maayo laakiin ajrigiisaa ku badanaya siduu nebigu faray sala allahu calayhi wasalam tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka suxuurta buu nebigu uhi baraka ku jirta baraka dhinaca diinta ah iyo baraka aynu taabanayno oo dee qofkii tamarta uu helaya ah sunnaha labaad waxay suxuurta qudhigeeda inaynu dib dhigno oo xagga waaga lagu dhoweeyo sida uu tilmaamaya xadiidka saxiixa ah ee zayd ibnu haabit uu warinayo ee uu leeyahy nebigaanu la suxuuranay markii aanu suxuurnay yar kadibna waxaan u kacnayba salaadii subax intii u dhaxaysay markii la weydiiyeyna 50 aayadood qadar lagu qiyaasi karaa u dhaxeeyay buu waa wax aan 10 meerar 15 meerar meelahaas u dhaxeeyay marka suxuurta dhibka jira waxa weeye haddii hore loo suxuurto qofku inuu seexda laga yaabo salaadii subax dhaafto sida dadka qaarkood ay sameeyaan mana laha wax farqi ah bisha 15 hore iyo 15 dambe siday dadkeenu yiraahdaan 15 horena waaga hore loo suxuurtaa 15 dambena waaga la iska ilaaliyaa marka labada jeerba waa in la dib dhigo aadaabta waxaa ka mid ah sunnayaasha aan idhaahdo ka saddexaad waa in afurka laftiisa la dedejiyo rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa yazaalu nnaasu bikhayrin ma cajalu lfitr dadku khayr bay ku sugnaanayaanoo sunnihii iyo hadigii wanaagsanaa sidii bay ugu taagan yihiin iyagoo nebi maxamed kaga dayanaya intay afurka dedejinayaan qoraxdu ma dhacaysee way wareegaysaae markay adiga kaa libidhuunbaad afuraysa markay innaga inaga qarsoonto ee aan wax gidaari ku gudbanayn kolkaasaad afurka dedejinaysa sunnahaa sidaa ku jira sunnaha shanaad waxa weeye timir in lagu afuro inaguma helayne weliba nebigu wuxuu ku afuri jiray rudabaad qaybta rudabka la idhaa waa timirta cusub ee markaa wanaagsan taa haddaan la haynina timirta kalea lagu afuraya waayo wax fara badan bay jidhka caafimaadkiisa qayb ka tahay iyo caafimaadka jidhkiiyo ruuxda labadaba way faa'iideynaysaa timirtu waa haddii aanu qofku dee cudur qabin uu ku dhib mudanayo waa sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnaha lixaad waxa weeye iftaaru saa'imiin qofba wuxuu heli karayo dadka sooman inuu ku afuriyo oo aanad keligaa un afurin ama aanad dadka afuru doonanin haddaad heli karayso waa inaad adigu dadka isku daydaa inaad afurkooda ka qayb qaadato waxaad ku afurinaysaa ayaanu badnaaninba nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi qof sooman qofka afuriyaa ajrigiisi in la eg buu leeyahy
xabad saambusaati haddaad siiso koob sharaaba siiso wax kastood siisaba qofka ku dadaal inaad ka gaadhsiiso inaad la hesho inaad adagu afuriso marka taasina ajrigaasay leedahay oo dee kolba inta qofeed afuriso ayaad ajrigoodii leedahay haddaad 100 qof afuriso dee 100 maalmood baad sootay ka dhiganta sunnayaasha waxaa ka mid ah iktaaru sadaqa sadaqada in la badiyo mar gaara insha Allah si gaara uga hadli sadaqada waxa weeye qofku markuu sooman yahay sadaqadiisu waa inay ka badnaato waqtiyadii kale caadiga ah oo cibaadadii iyo cadiyadii baan labadaba isku daraynaa وكان أجود ما يكون في رمضان وكان أجود ما يكون في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم مركي سورو قعان فرنا ديقسبوها ولبا رمضان بوسيب بدين جريدين لين صحابته حديث الصحيح يسدو الباب ايو سنة اللي حادو حوية بشر وبشر قرآنك لا بد من الاكثار من قراءة القرآن قرآن كريم كآخرين سنين بدنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبشر قرآن كالسودة شيء كقلبك كن نوريا عبادة إنور لميسا ملكنا نبي قول سبعين شري كان يدارسه القرآن ملك جبريل يو رسول كويس 70 شري بشهر رمضان قرآن أنا وذا آخرين شري المدرسة وذا آخرين وي دي عناية ددال قاروي مركوينا نسميسنا جدول أما وحين كهول قالوا ما أنت أنا نافن أنت آخر أو أنت كوكردي أو سلاس سياد بشي وقران كرتين تجارة دبينيس imika waaba inaga xidhantay sunnayaasha waxa kamid ah sagaalada ictimaarka inuu qofku cumro soo guto sanadkan way suuroobayso waa la xidhay laakiin waqtiyada ay furnayd cumradu iyo qofka ay u dhib yar tahay Ramadaan in cumraysto nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu cumratu fi Ramadaan ta'dilu hajja qofku inuu cumro soo guto bisha Ramadaan waxay u dhigantaa hal xaj marka waqtiga suura gashan bay taasi noqonaysaa arinta tobnaad waxa weeye alkafu amma yatanafas siyaam inuu qofku iska daayo soomka wixii ka hor imanaya ee ama ka jabin kara ama ajrigiisa ka naaqusaya xagga hadalka marka la eego oo meeshii dad intood ugu tagta hadalkeedu uu badan yahay ama xanteeda ama dembigeeda hadal xumo badan ay ka soo dhacayso inaad weydaaratood iska daysaa ku fiican hadallada qaarkiina hore inuu soo sheegnay inay burinba karaanba soomkii sida eraygii gaalnimada ahaa oo kale iyo diin caayigii iyo ilaah caayigii وهذا لكن وهذا برينا يصامك هذا الكاغال لماذا وحي كسو هرينا اجري بو يرينيا وعين انت اي وغسي غد بلهينو قدب كافراد ونقنيا اسرار الصيام عباده صومك لا يراده حكمتها كجيره اما ميرها اما فائدده كجيره كدهسون اما قفكو اي تاي انو كبراروgsanaado iyo xigmada loo jideeyay waxa kamida waa sabab min asbaab التقوى sababaha keena way alla ka cabsiga inaad alla ka cabsi heshaana wax sahlan maaha waa gobonimada iyo laandheeranimada uu qofku helo ilaahay agtiisa la'allakum tattaquun ba ilaahay uu ku cileeyay markuu soomka iyo waajibnimadiisii ka soo hadlay wuxuu ku gabagabeeyay aayada in alla ka cabsi laga helayo oo sababta la idin faray waxa weeye la'allakum tattaquun si ilaahay uga cabsataan waxa labaad xigmadiisa kamida yudarribu al-irada qofka go'aankiisu carbiya oo adiga oo naftaadu ay doonayso hamadaadii iyo cunadaadii iyo wixii ay u baahnayd haddaad u samayso break joojiya dee go'aan baad leedahay bay ka dhiganta qofkuna hadduu go'aan leeyahay waa qofku xisaabtan leh oo wanaagsan oo diin iyo dunyaba qiimo leh qof aan go'aan lahayn oo naftiisu ay hogaaminayso ayaa xun yadacu dacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli xadiid alqudsiga waxaa ku jiray sheegaya inuu ilaahay si gaara u abaalmarinayo qofkan sooman aakhiro dee wuxuu u baahnaa cunadiisii iyo cabidiisii iyo hamadiisii wuxuu uga tegey aniga daraaday buu ilaahay marka waa qof go'aan leh waxa saddexaad asraarta ka mida waa ishcaarun linicmati illaah ilaahay nicmooyinku ku siibaa dareemaysa bal galabtii u fiirso cunadu macaanka iyo dhadhanka ay leedahay waxa marka loo baahdo baa la gartaa un wanaagu leeyahay qofkii 4 jeer maalintii wax iska cunayay nicmada ilaahay aad u dareemayn laakiin markaad gaajooto ee sharaabka iyo cunadii cabitaanka macaankooda aad aragto waxa uu soo ruuxu wanaagsan ayaa ku siiyay ilaahay Allah marka ilaahay baad u mahadnaqaysaa laana shay'a yu'rafu bil did balaya shayga cagsigiisa lagu gartaa marka cunada macaankeeda waxa lagu garan karaa cunno la'aanto gaajada ah waxa weeyaan waa sabab li qabuuli ducaa cibaadadan soomku waa sababaha lagu aqbalo ducada والنبي وحو إنه شيء صلى الله عليه وسلم 3 دعوات لا ترد
saddex baryo lama soo celiyo waxa ka mid ahaa dacwatu saa'im qofka sooman rabbi barigiisa marka ha ilaawina howlaha qabanaysa maalinta soomka waxa ka mid ah ducada waa sababun li sihhati al-abdan jirka ayaa ku caafimaada dad badan oo xanuunsanaya markay soomaan bay ladnaadaan bal waxaynu arkaynaa gaalada oo casrigan aynu joogno oranaya dadka qaar kood markay caafimaadkooda kala talinayaan 8 saacadood soon si cunadu ay jirkaaga uga baxdo calooshaada ama jirkaagu oo had iyo jeer isu safeeyo marka waxyaabo badan baa lagu daweeyaa uu ka mid yahay cudurkan dhiigkarka la yiraahdo macaanka iyo cayilka sunta jirka had iyo jeer gasha duhniyaadka iyo waxa la yiraahdo cholesterolka qalaqa iyo deganaansho la'aanta iyo suul hadmi dheefshiidka xumaada iyo idmaanka waxa la yiraahdo idmaanku waa walafka qofka had iyo jeer balwadaha laasima daroogooyinka ama jaadka sigaarka waxyaaba lagu daaweeyo soomka kamida oo madaha shisheeyaba ay ku daweeyaan marka caafimaadkii ruuxda oo kaliya ma xambaarsana soomka caafimaadka jirkana waa la ogaaday oo sidaas uu xambaarsan yahay wa sababun li rahmatil masaakiin masaakiinta in loo naxariisto sabab u yahay oo siraha ku jiray kamid tahay oo qofku had iyo jeer wuxuu arkayaa qofkan baahane gaajaysnaa dhibaatada haysa marka wuxuu leeyahay adigu bishanaad xamili weyday ama maalintan oo qura gaaje balka sanadkaba gaajaysnaa talo muxuu ku nool yahay wallahi in loo gurmadaabo mudan yahay markuu masaakiintii la gaajoodo ayuu qofkii iyagii u dabcayaa oo deeqsi uu noqonayaa waana sababta dadka muslimiintu bisha ramadaan ay wax aad u badan u bixiyaan oo deeqda ah arinta toddobaad ee faa'iidada soomku waxa weeyaa waa musaawaatun bayna annaas liijaabi aljuuci calayhim dadkii baa la simaya cibaadooyinku had iyo jeer waxay u taagan inay dadka simaan xajka dadka la simaya soo wada xaadiraya iyagoo labis qura wada xidhan salaadu dadkay simaysaa taajirkii iyo maalqabeenkii iyo madaxdii iyo raciyadii garbaha la simaya soomkuna waa saas oo kale oo dadkii buu simaya gaaja la yidhi wada gaajooda kii dhargaya iyo kii wax yar haystayba marka in dadku sinmaana wax badan baa ku saxma xigmadda sideedaad waxa weeye yusaacidu al-amn nabadgelyada oo dadku ay aad u baahan yihiin soomku wuu saacidaa oo talow siduu saacidayaa dadka dhibkoodu wuxuu u badan yahay marka ay dhargaan dhan walba waa u dhaqdhaqaaqaano dhaqdhaqaaqooda sharka ayaa badan laakiin haddii ay dharagaasi yareeyaan waxa yaraanaya hamadooda qaldan iyo hawshooda iyo hadalkooda wuu yaraadaa waxaynu ognahay oo kale oo intaasiiba dheer kii dadka isku diri jiray madaxa isugu dhufan jiray ee qabaa'ilka isku kicin jiray ee shakhsiyaadka isku kicin jiray shaydaanka watan la xiray kuwoodii waaweynaa naarafuufkii iyo kii dabka soo shidayay waa xidhan yahay sidaa daraaddeed fitanku way yaraadaan bisha ramadaan guushuna way badataa awliyada ilaahay ay helayaan waa sidaa daraaddeed baa waxaa sagaalaadoo lagu tilmaamay annahu sababun linasri alacdaa linasri cala alacdaa waa sababaha lagaga guulaysto cadowga sidaa daraaddeed baa futuuxaadkii iyo xorayntii la xoraynayo wadamada gaalada ee dadka muslimiintu ay geli jireen in fara badan baa waxay dhici jireen bilahan ramadaan bisha ramadaan bay dhici jireen haddii ay tahay wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo wakhtiyadii ka dambeeyeyba haddaynu inagu nahay dad iska seexanaya uunoo isu arka inay daciifeen wakhtigaasay mujaahidiintuba dagaalka geli jireen sidii beder iyo fatxu maka iyo dagaallo ka dambeeyey oo jihaad ka mid ahaa oo caan ahaa markaa wakhtiyada had iyo jeer guusha la helo ayaa ay ka mid tahay bisha ramadaan ama soomkuba iyada oo loo rugseeyo weliba dadkaa dagaalamayana inay iska cuni karaan mar haddii ay safar ku jiraan jihaada marka arrimaha tobaneeyada ku dhowi iyo qaar kaloo ka sii badaniba waa siro ku jira bishan ramadaan oo marnaba aynaan ka maarmaynin soomkeeda macnaha waa fariidatun bashariya fariidatun sharciya wa daruuratun bashariya sharci ahaan waa faral laakiin basharkiiyo bani aadamkiibaaba u baahanba maadaam arrimaha ijtimaaciga ah iyo shaksiga ah iyo xidhiidhkii ilaahay iyo xidhiidhkii addoommahoo lagu wanaajinaya intuba ay ku jiraan marka afartaa qodob ayaynu ku soo gaabinay oo fawaa'idkii iyo axkaamtii bishan ka mida wahada ma aquuluhu waastaqfiru allah walilxadiidi baqiya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu